السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء كونين أكاديميك عشر كلمات وحن كسر قادنا time value of money أو أركتي economic تاسو قيمها يو وقتها قيمها يوليه تصالحان هندي the money that you have right now will worth more than over time taasoo micnaheedu tahay lacagta amaanta haysatid waxay ka qiimo badan tahay lacagta waqti soo socota ku soo gali doonta macnaha ayaa ah in lacagta mar kastaba qiimaha value-geeda ay hoos u dhacayso maahan numberka lacagta maahan waxa hoos u dhacaya laakiin value-ga ama qiimaha $100 ama $1 oo suuqa wax ugu soo qaybsanaysid ayaa ah mid hoos u dhac weyn ku imaanaya tusaalahan kani waa cali aan Fatima cali ayaa wuxuu weydiiyey Fatima sideed u aragtaa haddii aan ku siiyo $1 maanta ama $1 sanadka soo socda Fatima ayaa ah qof aad u fiirisay maadaama aynan u dhaxin wax isbedel ah $1 maanta lagu siiyo $1 oo lagu siiyo sanadka dambe tusaalahan adigaba haddii aad lagu soo bandhigo in $1 maanta lagu siiyo ama $1 lagu siiyo sanadka dambe ama tusaalahan $100 lagu siiyo maanta ama lagu dhaho $100 qaado sanad kadib keebaa qaada lahayd maadaama wax isbedel ayna jirin maadaama value-ga lacagta aan isbedel ayna ku jirin waxaa qaadanaysaa maanta halka $100 ama $1 ee maanta lagu siinayo tusaalahan if $1,000 today haddii lagu dhaha qaado $1,000 today on 1 year from now ama 1,000 qaado hal sano kadib keebaad qaada lahayd way iska caddahay waxaad qaadan lahayd maanta inaad $1,000 aad qaadatid sababtoo ah haddii maanta 1,000 lagu siiyo waxaad ku qabsan kartaa wax aad u qiimo badan tusaalahaan $100 ama $1,000 maanta lagu siiyo ayaa saving accounted ayaad ku xareyn kartaa bankiga taasoo ku siinaya bankiga interest-ka hadduu yahay mid simple ah oo ah mar kastaba mid continuous ah ama mid compound ah oo sanad kastaba interest-ki iyo lacagtii principal-ki 1,000 ee bankiga aad ku xareysay ee sii kordhayo aragtida ganacsi ee ku dhisan time value waxay ku xiran tahay waqtiga ayaa ah mid qiimo aad ku dhisan tusaalahaan lacagta sanadkan haysatid ee bankiga kugu jiro sanadka soo socdo isla qiimihii sanadkan ay ku joogtay kuguma fadhiso sababahaas ayaa waxaa dhaliya inflation ayaa ku timaada economiga waddan kastaba ayaa ah mid kala duwan tusaale ahaan waddankayna Soomaaliya maadaama uunan lahayn wax lacag basic ah hadday jirtana shilinka Soomaaliga oon ahayn mid qiimo leh midda labaad ayaa riskiga ayaa haddii lagu dhaho lacagta maanta qiimaheeda lagu siinaya sanad kadib ma ogid sanad kadib lacagta in lagu sii doono riski ayaa ku jiro riski maadaama riski aad qaadanaysid waxaa ku fiican lacagtaada maanta in lagu hormariyo maadaama lacagta maanta ay qiimo ku leedahay midda labaad ayaa personal consumption oo ah in lacagta maanta aad u baahan tahay ama wax aad ku qabsan kartid tan afraad oo ah tan ugu muhiimsan ayaa investment opportunity oo ah haddii maanta lagu siiyo $1,000 ama lagu weydiiyo 1,000 kan isla mid ah ama 1,000 iyo 100 qaado sanad kadib waxaad dooranaysaa 1,000 maanta in lagu siiyo maadaama aad ku qabsan kartid investment aad lacagta investment ku samayn kartid taasoo interest ku fuulaya interest kaasoo compound taasoo ku laba jibaarmaya lacagta sanad kadib lacagtaas xataa waxaa ka fogaanaysaa lacagtaada in ay ku dhacdo inflation ayaa ah in price-ka qiimaha
koobka shaaha ee magaalada muqdisho uu kor u kaco haddii aad ku iibsadi jirtay 5,000 oo shilinka Soomaaliga sanadkani waxaa laga yaabaa sanadka soo socda in uu u kordho 10,000 oo shilinka Soomaaliya ma ahan lacagtii wax isbedeshay ee waxa isbedel ku dhacay economiga ee wadanka taas ayaa waanta casharkan waxaan ku soo qaadanaysaa laba shay oo basic u ah markaste ee aad investment ama maalgelin aad samaysanaysid taasoo ah present value qiimaha lacagta maanta ay ku joogto ama shayga qiimaha ee ku joogi doono future value formuladan ayaa formulada loo isticmaalo marka aad doonaysid mid kamid ah future value ama present value VF ayaa u dhigmata future value 1 taasoo lagu daray I waxay u dhigmataa interestkaas oo ah ama simple interest mid continuous ah ama mid compound ah oo markastaba lacagta principalka ee marka hore deposit ku samaysatay ku dulfuul ku noqonayo n ayaa number of compound period waqtiga isdul saarka ah ama waqtiga lacagtaada kordhaysa ama increase ku imaanayo midda kale ayaa T ayaa number of years inta waqti ee lacagtaada oo interest oo ku soconaya haddii aad ugu tala gashay in aad savingkaada oo soconaya wax ka badan muddo 2 sano 3 sano 4 sano haddaba aan fiirino Excel sida loogu xisaabiyo future value and present value halkani waxaan ku haysanaa qaybta ugu horeysa ee ah present value waxaan haysanaa laba tusaale oo kala ah tusaalaha koobaad ninka Michael loo yaqaan decide to invest for 2000 wuxuu doonay in investment ku sameeyo $2,000 in stock ayuu wuxuu ku invest gareystay 2000 muddo u dhigmato 5 sano waxaa lagu weydiiyey haddii Michael investmentiga oo interestiga uu yahay 8% oo helayo sanad kastaba meeqa ayuu helayaa what is the total of sum of the end of the 5th year sanadka shanaad markuu dhamaado meeqa ayuu helayaa lacagta totalka Excelka markaad ku xisaabinaysid waxaad qaadi kartaa wadooyin badan waxaan tusi doonaa laba wado ee ugu muhiimsan midda koowaad aan ku bilaabno waxaad ku bilaabaysaa calaamadda keyboardkaad ee equal ama calaamadda u dhig labada xariiq ee isdulta ama isku dhagan aan ku bilaabno calaamadan ayaa calaamadda markastaba ee Excel formula ku qoraysid in aad ku bilaawdo ka hor inta calaamadda aan ku bilaawnin aan buuxino column-kan noo diyaarsan oo ah rate waxaana noola sheegay Michael in uu helayo 2,000 oo investmentiga ku sameeyay 8% aan qorno 8% waxaa kaloo noola sheegay in uu Michael lacagtani uu sugi doono muddo 5 sano ah noolama sheegin payment in sanad kastaba lacag additional ama lacag kale oo ku kordhi doona lacagtii oo ku bilaabay ee 2000 ah taas daraadeed waan ka tagi doonaa waxaana waxaa kaloo noola sheegay in lacagta uu ku bilaabay ay ahayd lacag 2000 xilliga present value waxaana la weydiiyey lacagtani 5 sano kadib meeqa ayuu noqonaysaa waxaan isticmaalaynaa formulada labada qaybood qaybta ugu horeyso oo ah aan ku bilaabayna calaamadda equal calaamadda equal colorka aan muujiyo hal mar sida colorka ula qabsataan calaamadda equal aan ku bilaawno aan waxaan doonayna waa future value waa inaa ka bilaawda v markaad waa inaa isticmaashaa keyboardkaada tab sida uu hore ugu socdo waxaan doonanaynaa rate oo ah
lacagta intrinsiga u saarmanaysa 2000 so rate waa kana waxaan doonaa rate waxaa isticmaalaysaa calaamada comma waxaa isticmaalaysaa number of years oo ah 5 sano ama muddada 5 sano ee ninkan uu sugaya lacagta waa 5 sano waxaan isticmaalaynaa calaamadan waxaan kana isticmaalaynaa lacagta principalka ahayd paymentiga noolama sheegin waxaan isticmaali karnaa 0 ama waaba ka tagi karnaa 0 iska isticmaal maadaama aan waxba nolol sheegin waxaan kaloo isticmaalaynaa lacagta present value ahayd qiimaha ahayd present value waxaan noola sheegay 2000 waxaan soo xiri doonaa column-ka waxaa la weeyaa the end of the period so end of the period macnaheedu waxay tahay lacagta Michael sanad kastaba end of the period lacag miyuu ku kordhi jiray maadaama wax payment aanan noola sheegay aanan la weydiin so waxaan ku tagaynaa waxaan dhahaynaa calaamad enter so waxay cadeynaysaa 2938.66 ayuu helayaa muddada 5 sano kadib waxaas weydiinaysaa waa maxay colorka uu u noqday casaan kasaan wuxuu u noqday 2000 ee present value oo ah ninka Michael investment ku sameeyay waxay ahayd maadaama lacagta ay ka baxayso jeebkiisa ay lacagta galayso stocka waa in minus la geliyaa so lacagta adiga debit iyo credit oo ah lacagta hadda waxay jeebkaada ama waxay kasoo noqonaysaa credit waxayna debit ku noqonaysaa waxaa lacagta deposit gareynaysaa stock so 2000 waxay noqonaysaa in aad minus aad gelisaa so maadaama lacagta ay minus aad gelisid 2000 waxaad gelisaa minus so waxay noqonaysaa 2938 so that's waa 2938 ayuu helayaa muddo 5 sano kadib